gudoomiyaha gobolka Awdal ayaa maanta kulan hal maalin u soconayay u furay ururada bulshada iyo dadka laga tirada badan yahay waxaana laga hadlayay sidii xuquuqda iyo xaqa ay u leeyihiin loogu heli lahaa dadka laga tirada badan yahay kulankaasi ay soo qabanqaabiyeen ururka codka haweenka Soomaaliland ee Fasammo waxaana ka qayb galay salaadiin culimaaddin iyo dadka laga tirada badan yahay ee lagu haybsooco ee ku nool magaalada Boorama iyo ururada bulshada qaarkood waxaana ugu horeen halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka Fasammo Nimca Iid Salaan waxayna ka warantay ujeedada kulankaas iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay ujeedadiisuna waxay tahay inaynu daraasayno caqabadihiisa soo wajahay musharaxiintii ka soo jeeday beelaha laga tirada badan yahay ee ka qayb galay doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee gobolkan Awdal iyo waliba duruusta laga baran karo si looga gaashaanto mustaqbalka dambe waxa halka inooga cadaatay in aanay dadkani ku soo baxayn doorasho wixii doontaaba ha sababtay ama sababaha ahaatee waxaana loo baahan yahay in la siiyo dadkan saami kooto ku dhisan oo laga siiyo golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka annagoo aad u soo dhaweynayna khudbadii sanadeedkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka horjeediyay labada gole taas oo uu ku sheegay inuu dib ugu soo celin doono baarlamaanka kootadii ku saabsanayd dadka laga tirada badan yahay iyo dumarkaba sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ku-xigeenka golaha deegaanka Maxamed Faarax Dheerayste maadaama degmada ka mas'uulnahay iyaguna ay yihiin dad degmada ku dhaqan waxaan ballan qaadaynaa inaan wax kasta oo ay xildhibaanadoodu u qaban lahaayeen annagu aanu heegan ugu jirno oo diyaar u nahay oo nu taagan sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Awdal Cabdi Axmed Ayir wax laga qaban karo ayaanu ka qabanaynaa insha Allah ta'ala ama madaxweynaha ahaato oo diyaar u ah horena u qaatay talaabo ah inuu koonto gaar ah u xiro ama mar labaad damacsan inuu ku celiyo arintii uu soo bandhigo baarlamaanka labada gole Suldaan Ibrahim Dacar Yuusuf iyo Suldaan Maxamed Cabdi Rooble Xasan Wacays iyo Suduwaha oo qaaftay diinta Sheekh Xamuud Nadiif awl oo ka tirsan xildhibaanadii hore golaha deegaanka ayaa ku dheeraaday ahmiyada kulankaasi iyo sidii loo garab joogsan lahaa dadka laga tirada badan yahay iyo waxyaabaha ay tabanayaan isla markaasina cadaalad loo siin lahaa waxaan caafi shabakada wararka ee News magaalada Boorama